asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu galab wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa galabnimo jimcaha bisha julayna waa 7 sanada 2023 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a taliyaha ciidanka militariga ah ee Somaliland Nuux Taani oo amar siiyay ciidamada Somaliland iyo ciidamo cusub oo maanta la sheegay in ay guud ahaan hareereeyeen meelo ka mid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa nigi doona iyo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhay gobolka Sool iyo ciidamada deegaanka oo iyaguna duulaankii ugu dambeeyay ay ku qabsanayaan magaalada Laascaanood maanta tijaabadiisii sameeyay Puntland oo iyaduna isku dayeysay inay ka caawiso ciidamada deegaanka sidii ay u qabsan lahaayeen saldhigaasi weyn ee Goojacad iyo ciidamo cusub oo la sheegay in magaalada Boosaaso laga soo abaabulayo taliyaha ciidanka sirdoonka ee wadanka Kenya waxa uu maanta gaaray magaalada Muqdisho waxa halkaas ku soo dhaweeyay taliyaha NISA ama sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad iyo qorshe ballaaran oo guud ahaan labada sirdoon ee Soomaaliya iyo Kenya ay xilligan dabada ka riixayeen iyo sababta ugu weyn ee taliyaha ciidanka sirdoonka ee wadanka Kenya oo ah nin Soomaaliya uu maanta u tagay magaalada Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed oo aad uga cadhooday warbixin la soo saaray taasi oo lagu sheegay guud ahaan shanta wadan ee ugu islaamka badan dunida Soomaaliya ayaana kaalinta labaad ka gashay iyadoo la sheegay in boqolkiiba 99.8 ay muslimiin yihiin inta kalena ee soo hadhin ay gaalo yihiin lamana oga guud ahaan warbixintaasi iyo waliba waxa lagu saleeyay waxaana dadka haatan guud ahaan warbixintaasi ka cadhowday ay sheegeen in Soomaaliya boqolkiiba boqol ay islaam tahay aanay jirin guud ahaan dad la soo qaadan karo oo Soomaaliya gudaheeda gaalo ku ah ama Soomaaliya ay leedahay oo gaalo ah qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay sheegayaan in taliyaha ciidanka militariga ee Somaliland Nuux Taani oo maalmahanba ku sugnaa saldhigga weyn ee Goojacad in uu maanta u khudbeeyay saraakiisha iyo guud ahaan abaanduulayaasha kala duwan ee ciidanka Somaliland waxaana uu sheegay oo uu amar ku bixiyay in ciidamada heegan culus la geliyo meel walba oo ay ka joogaan gobolkaasi Sool waxay Somaliland ka warheshay sida wararku ay tilmaamayaan duulaan culus oo ku soo fool leh isla markaana la doonayo in lagu qabsado fariisinka ama saldhigga weyn ee Goojacad arrimahaas ayaa la sheegay in Somaliland ay doonayso inay ka hortagto waxaana taliyaha ciidanka militariga ee Somaliland Nuux Taani uu maanta amar ku siiyay ciidamada Somaliland ee ku sugan gudaha Goojacad inay tallaabooyin kala duwan qaadaan tallaabooyinka ay Somaliland qorsheynayso ee ay doonayso inay ka qaado magaalada Laascaanood ayaa la sheegay inay kamid yihiin in la duqeeyo goobaha ay saanada iyo waliba hubka u yaalo ciidamada deegaanka ama kuwa Khaatumo ee ay duulaanka ka soo qaadi doonaan iyo waliba meelaha la sheegay in qoryo waaweyn lagu xidhay kuwaasi oo la doonayo in magaaladaasi laga difaaco oo ciidamada deegaanka ay rabaan inay weerar qaadaan haddii weerarkaasi ay guud ahaan ku jabaan ama ay dhibaato ka soo gaadho ciidamadooda la soo riixana waxa ay ugu talagaleen in ay guud ahaan magaalada difaacdaan oo ay hubkaasi culus ku difaacaan ciidamada deegaanka ayaa ka cabanayay guud ahaan bilihii la soo dhaafay in aanay haysanin hub culus oo ay isaga difaacaan weerarada kala duwan ee Somaliland inkasta oo ay difaacdeen magaalada isla markaana Somaliland aanay qabsanin magaaladaas haddana waxay ku andacoonayeen in hubka ay Somaliland haysato iyo waliba midka ay ciidamada deegaanku haystaan inaanay isku mid ahayn balse haatan waxaa la sheegay in la soo gaarsiiyay tiro taangiya iyo waliba hub kale oo culus oo ay ciidamada deegaanku ku dagaalami doonaan Somaliland ayaana waxa ay arkaysaa in xalka magaalada Laascaanood uu sii fogaanayo marba mar ka sii dambaysa arrimahaas oo dhan oo jira ay Somaliland isku dayaysaa haddana in ay guud ahaan magaaladaasi Laascaanood ay weli baadi doonto oo ay isku daydo in ay si rasmi ah ula wareegto waxaa Somaliland haatan la sheegay inay xoogga saarayso sidii ay u sugan lahayd ama ay u adkeysan lahayd xuduudka ay la leedahay Puntland isla markaana guud ahaan si khilaafka ka taagan magaalada Laascaanood ama dagaalka halkaasi ka socda oo u noqdo mid gudaha Somaliland ka socda balse haddii ciidamada Somaliland lagaga guuleysto Goojacad iyo waliba agagaarka guud ahaan xuduudka dheer ay la leedahay Puntland waxay taasi noqonaysaa in guud ahaan Somaliland ay luminayso gobolka Sool arrimahaasi ayna Somaliland haatan doonaysaa inay ka hortagto oo ay iska diido waana sababta ugu weyn ee haatan taliyaha ciidanka militariga ee Somaliland Nuux Taani uu amarka culus u siinayo ciidamada Somaliland waxaa sidoo kale xogaha soo baxay ay sheegayaan in qaar ka mid ah ciidamada Somaliland gaar ahaan kuwooda tababarka fiican haysta in la geeyay dhanka ama loo diray dhanka xuduudka Somaliland iyo Puntland iyo waliba saldhiggii hore ciidamada Somaliland ay ku lahaayeen deegaanka Tukaraq lama oga sida ay halkaasi ciidamada Somaliland ay isaga difaaci doonaan iyadoo la ogyahay markii uu bilowday dagaalka magaalada Laascaanood ee ciidamada Somaliland kuwoodii ku sugnaa saldhiggaasi Tukaraq in dib ay ugu soo ruqaansadeen dhanka Goojacad inkasta oo dadka qaarna ay tilmaameen inaanay halkaasi ka durugsanaynba Goojacad oo ay
u muuqdaan ama aanay wax saas u badan aanay u jirin ciidamada fadhiisan doona Tukaraq. Haddana Tukaraq waa marinka ugu muhiimsan ee ciidamada deegaanku ay isticmaalaan xilligan marka ay timaado dhanka Puntland iyo weliba gurmadyada kala duwan ee xaggaas uga imanaya. Waxaana inta badan sida xoguhu ay nagu soo gaarayaan ciidamada deegaanka ay ka shidaal qaataan dhanka Puntland, magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso. Madaxda guud ahaan SC Khaatumo, garaadada, mas'uuliyiinta kala duwan, taliyayaasha iyo guud ahaan mas'uuliyiinta ku sugan magaaladaasi Laascaanoodna waxa ay ka yimaadaan ama ay soo maraan ama qaar badan oo ka mid ah degan yihiin magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Waxaana Garowe guud ahaan iyo Puntlandba ay u yihiin halganka iyo dagaalka ka socda magaalada Laascaanood laf-dhabarka ugu weyn ee haatan la sheegi karayo. Waa sida ay wararku tilmaamayaan ama guud ahaan dad badan oo arrimaha gobolkaasi falanqeynaya ay sheegaan. Somaliland ayaana ka hortagaysa weerar kaga imaada dhanka Puntland marka la eego saldhigga Gooja Cadde. Isla markaana waxaa soo baxaya xogo sheegaya in ay doonayaan ciidamada deegaanku oo la qorsheeyay weeraro dhowr jiha in lagu qaado saldhiggaasi si ciidamada Somaliland looga saaro. Waxaana ciidamada Somaliland ay haatan doonayaan inay isku ballaariyaan gobolkaasi Sool. Waxaana wararku ay tilmaamayaanba in xitaa la sameyn doono fadhiisimo kale oo ciidan oo ku yaala meelo ka baxsan deegaamada haatan ay degan yihiin ciidamadu ee ku hareeraysan magaalada Laascaanood. Deegaamo fogna la geyn doono ciidamo ka mid ah kuwa Somaliland oo ay saldhigyo ka samaysan doonaan isla gobolkaasi Sool si ciidamada aan hal meel ah loogu ururin. Waa tahay haatan anigna magaalada Muqdisho waxaa maanta gaaray taliyaha ciidanka sirdoonka ee wadanka Kenya Nuruddin Haji oo xilkaasi loo magacaabay Gorow. Nuruddin Haji ayaa ah nin Soomaali ah oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari, waxaana uu noqday taliyihii ciidanka sirdoonka ee wadanka Kenya. Agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka qaranka Kenya Nuruddin Haji ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana halkaasi ku qaabilay taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad. Nuruddin ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyagoo ka wada xaajoon doona arrimaha amniga iyo weliba iskaashiga u dhexeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ayaa dhowaan sheegtay in ay dib u furayso ama guud ahaan ay doonayso inay dib u furto xuduudka Soomaaliya iyo Kenya, walow mar dambe war soo baxay lagu sheegay in uu dib u dhacay dib u furista xuduudka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay bateen weerarada kooxaha argagixisada ah ay ka geysanayaan gobolka dhanka Soomaaliya xiga ee Waqooyi Bari. Maalmihii la soo dhaafay dagaallo iyo weliba weeraro qorsheysan ay ka fulinayeen kooxaha argagixisada ahi meelo ka mid ah gobolkaasi Waqooyi Bari. Arrimahaasi dartood ayaana Kenya ay sheegtay in xilligan ay dib u dhigayso guud ahaan dib u furista xuduudka Soomaaliya iyo Kenya oo muddo xidhna. Taliyaha ciidanka sirdoonka ee wadanka Kenya Nuruddin Haji ayaa la filayaa in ay ka wada xaajoon doonaan madaxda Soomaalida, isla markaana uu fariin ka siido dhanka madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto wixii laga yeeli lahaa wejiga labaad ee dagaalka lala galayo kooxda argagixisada iyo weliba qorshe la sheegay inay doonayso Kenya in laga bilaabo xuduudka ama dhanka soo xiga Kenya in dib u sifayn lagu sameeyo oo Soomaaliya ay xoogga isugu geyso gobolada dhanka Kenya soo xiga si isku socodku uu u fududaado. Si kastoo xaalku ahaadaba, haddii gudaha Soomaaliya kooxahaasi lagula dagaalamo iyo haddii xuduudka Kenya iyo Soomaaliya lagula dagaalamo, waxay u muuqataa inay isku sii yihiin. Haddii kooxdaasi lagu furo furin dagaal oo kale in ay guud ahaan wiiqmayso oo ay yaraanayaan weerarada ay qaadi karayaan, inkasta oo weeraradoodu ay yihiin weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ayna ula jeedaan oo keliya inay ku khalkhalgeliyaan dadka isla markaana ay kaga hortagaan qorshayaasha dabada laga riixayo ee la doonayo in labada shacab ee walaalaha ah ay guud ahaan kala faa'iidaystaan. Kooxdan ayaana muddo dheer la dagaalamaysay nabadda iyo guud ahaan nolosha dadka Soomaalida ah, waxaana haatan wadamada Kenya iyo Itoobiya, Soomaaliya iyo weliba Djibouti oo la isku yiraahdo wadamada safka hore inay haatan ay iska sifeeyaan kooxahaasi dhibaatada faraha badan ku haya geeska oo dhan. Waxaana Kenya iyo Itoobiya ay arkayaan haatan inaanay dhibaatadu ku ekaan doonin Soomaaliya gudaheeda haddii ay guud ahaan ciidamadoodu ay gacmaha ka laabtaan. Waa sababta ugu weyn ee Kenya ay u sheegtay in ciidamadeedu ay kusii sugnaan doonaan gudaha Soomaaliya marka ay soo baxaan ciidamada ATMIS. Waxaana ay sheegtay ama guud ahaan wadamada Itoobiya iyo Kenya iyo Djibouti baa la sheegay inay saddexdooduba ku sugnaan doonaan Soomaaliya ilaa iyo inta laga sifeynayo ama laga ciribtirayo kooxahaasi. Arrintaas ayaa la sheegay in Soomaaliya ka wada hadleen isla markaana dowladda Soomaaliya ay ogolaatay oo aanay haatan wax badan ka qabin Soomaaliya in kooxahaasi lala sifeeyo oo wadamadaasi ay Soomaaliya kala shaqeeyaan sidii kooxahaasi argagixisada ah la isaga sifayn lahaa. Akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.